qaar ka mid ah madax dhaqameedka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada ka soo jeeda koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa oo ay ka mid ahaayeen oday Cabdiraxmaan Cali Qaawane, Injineer Maxamuud Yuusuf Cabdi, Chief Caaqil Cabdi Muuse Bowda Dhagax, Cabdi Khadar Jaamac Axmed, Garyaqaan Jamaal Macalin iyo Caaqil Axmed Cali Waraabe ayaa madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay isla markaana ka codsaday in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo. Caaqil Cali Shiriye oo ka mid ah madax dhaqameedka reer Somaliland halka waxaanu fariin uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland fariintaasi oo ku saabsan cabasho cadaalad darro ah. mudane madaxweyne haddii aan ognahay cid ka sokaysa oo aan cadaalad ku tuhmayno maana ku fariinta ku soo fareen ama kumaana soo direen meel walba waan maray hadday tahay janaka bilayska hadday tahay wasaaradda dakhliga iyo ku-xigeenkiisa hadday tahay hawlaha guud meel walba waan maray annagoo kala hadlayna arrinta beerta iyo caaqilka xidhan annagoo kala hadlayna mudane madaxweyne waxa ay mid waliba ku andacooday oo noo sheegay inuu meel ka sareysa uu ka xidhan yahay caaqilku taasoo u qaadanay in shaarkaagii cid kale lagu dilayo. waxaan madaxweyne ku soo gudbinaynaa in ninkaasi caaqilka ah ee xidhani uu ku xidhan yahay muddo 4 bilood iyo dheeraada oo 5 bilood oo dhow cadaalad darro ku xidhan yahay. sharci baa ka baxay ilaa 7 fayl baa beerta ka baxay oo sharciga lagaga saaray oo dadleeyin faylashiina halkan ku haynaa halkan ku dhameystireen faylashiina kuwaas ka mid ah 7 fayl weeye dad baa haysta dad baa leh waa laga iibiyay sidaas sharcigii beertu kii hawlaha guud iyo kii beera iyo kii dawladda hoose sidaas ku dhameystireen hadii la oran lahaa madaxweyne hadii la oran lahaa waxay sortaageen fulin bay sortaageen fulin ismu hortaagin caaqilka iyo cid la socota isma hortaagin iyaga la weeraray beertoodii baa lagu weeraray xooliyo xareesan yaarigo xareesan baa la weeraray waxa la keenay ciidan baa la keenay iyo kaabado iyo dad la wataaba la keenay 20 qof oo la yiri dhulka waa la soo siiyay baa la keenay lama arago may dhicin madaxweyne dawladii dhul wax ka qaato haday u baahato inay ka qaado waa suurtagal laakiin dad la mid oo suuqa laga keenay baa lagaaga qaadaya arinta waa la yaab dadka dhulka la siinayo suldaan habaar baa ka koowa furcas ninka la yiraahdo ka laba ilka asaad ayaa ka saddexa rag badan oo kala kamida halka waxa doonayaan ka cadeeyo horta marka hore Maxamed Daawud waa beelahan marka la sheego beelaha cabashada ama madaxweynaha noqoto ama xukuumadda ha noqotay waa beesha ugu cabashada yar intay TV soo taagto hadhow habeen wata beelo hadlaya Maxamed Daawud oo cabanayo le waxaasaan naga maqan waxay la tahay waa fara ku tiris maanta madaxweyne waxaanu ka cabanaynaa dadkii madaxweyne aad u egmatay amniga dalka ayaa amni darro wada khalkhal dadkii baa khalkhal abni wada madaxweyne waxaanu leenahay beerta ilma Maxamed Cariyo ay leeyiin Caaqil Cali Shiriye xidhani sharcigeedu uu dhameystiray wixii mulkiyad dhul hay'adaha ku shaqada lahayd ay dhul lagu yeelin jiray ayay haysta wasaaradda hawlaha guud wasiir ku-xigeenka amniga jaranka booliska waxay yiraahdeen sharciga aqoonsan mayna biilaahay waxa weeye sharcigaasi waa ka lagu tusayay waa sharcigi mulkiyadii wasaaradda beeraha waxa weeye kii dawladda hoose waa kii hawlaha guud xukuumadii hore kala dambeeyay bixiyeen waa kii maxkamadaha intaasba waxay yiraahdeen aqoonsan mayna markay dadkii xilka iyo amniga iyo mas'uuliyadda hay'adaha dastuuriga ku magacaawna aqoonsan waayeen shuruucda dalka waxay la tahay shacabna aqoonsan maayo madaxweyne waxa ka doonaya bal inaad labada reerood aad guddi gaar ah u soo dirtid oo cuqaashiyo iyo sulaanada reeraha beeraha kale bal arrinka yar baa sidoo hoos u eegtid oo arrinkaasi u yar qabiileysay ya
oo labada reer baa la isku wadaa la isku lisba laga wadaay bilmadooda madaxweyne waa fiilka bakteeriyada hoos aad yar eegti insha Allah waa ku salaamaya wax islaam oo si fiican loo hadlo oo na soo dhaweeyay oo na karaameeya afarta bilood xafiis aanu tagin bijro nikayna kayna xanuunsanaya ayaa shiri cadaalad darrada dhacday ee ninkan caaqilka cali cabdi wacays cali shariye caaqilka sharciga sita ee beertiisii lagu haysto ee 5 bilood iska xiran ee meeshii lagu ilaaween maxkamadina waxba ka xukumayn cid kaliya dawladii amniguna ay waxba ka qaban waayeen madaxweynaha inaan wadaadiisa gaarsiino oo uu cabarno oo laga soo dayo xanuunka haya awgii waliba il gacan loo eego oo hoos loo eego ayaanu halka baaqan lagu jeedin